السلام عليكم كسو دوادا تاريخ نولادك شيخ يوسف الكونين أو برخدل شيخ يوسف الكونين wuxuu ka mid ahaa culimadii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed soo gaarsiiya barashada diinta Islaamka isla markaasna qayb weyn ka qaatay fidida diinta Islaamka Soomaaliya bariga Afrika iyo qaar ka mid ah wadamada Aasiya Sheikh Yusuf Al-Kownayn wuxuu ku dhashay magaalada Saylac ee gobolka Awdal ee dalkeena Soomaaliya sanadka markuu ahaa 1280 miilaadiga sheekha noloshiisa hore ee dhalinyaranimo wuxuu aad u geliyay barashada diinta Islaamka isla markaasna wuxuu wax ku bartay magaalada Saylac intaas kadib sheekha wuxuu u kactamay dhanka iyo dalka Ciraaq gaar ahaan magaalada Baghdad halkaas wuxuu ku kororsaday diinta Islaamka isla markaasna wuxuu ku soo bartay luqadda Carabiga dalka Ciraaq inta uu joogay sheekha wuxuu halka ugu baxday mid kamid ah magacyadii loo aqoon jiray oo ahaa al-Baghdadi maadaama uu sanado badan ku noolaa magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq waxa la aaminsan yahay in Sheikh Yusuf Al-Kownayn uu ahaa sheekhi ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya ka bilaabo xarumo lagu barto diinta Islaamka iyo sunnada nabigeena sidoo kale Sheikh Yusuf waxa lagu xasuustaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee shaqalada luqadda Carabiga u bedela hangaadooda af Soomaaliga si ay carruurta yaryar ee Soomaaliyeed ay ugu fududaato hangaada Carabiga taas oo u fududeynaysa barashada Quraanka Kariimka iyo sunnada nabigeena Sheikh Yusuf Al-Kownayn kaliya ma ahayn ruux qayb weyn ka qaatay kufrida diinta Islaamka Soomaaliya iyo geeska Afrika laakiin sidoo kale wuxuu qayb weyn ka qaatay in diinta Islaamka ay gaarto wadamo ka tirsan qaaradda Aasiya Sheikh Yusuf sheekha waxa la sheegaa inuu ka mid ahaa culimadii ugu horeysay ee Islaamka ay gaarsiisa jasiiradda dhacda koonfurta Aasiya ee loo yaqaan Maldives badmareenkii Ibn Battuta ayaa soo wareeyay in Sheikh Yusuf Al-Kownayn uu ka dhaadhiciyay boqorkii xilliga maamuli jiray inuu qaato diinta Islaamka taas oo u horseeday in boqorkii iyo dhammaan dadka reer Maldives ay qaataan diinta Islaamka isla markaasna ay ka tagaan diintii Hinduusta ee xilliga ay haysan jireen sheekha halkaas wuxuu ka asaasay masjid hadda loo yaqaan Hukuru Maski kadibna wuxuu u sii gudbay dhanka iyo dalka Sri Lanka si uu ugu gaarsiiyo dacwadda diinta Islaamka waxa taariikhda lagu soo wariyay in Sheikh Yusuf Al-Kownayn uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee Islaamka ka asaasay dalka Sri Lanka waxaan la sheegaa in magaalo hadda ku taala galbeedka dalka Sri Lanka ee loo yaqaan Biriwala ay ugu magac dareen sheekha iyaga oo ku sharfaya sheekha soo gaarsiinta uu soo gaarsiiyay diinta Islaamka diinta sharafta leh Islaamka Sheikh Yusuf Al-Kownayn waxa lagu yeeri jiray magacyo fara badan sida oo barkhadle Al-Kownayn aabihii barakeysanaa ee Soomaaliyeed al-Baghdadi al-Berberi iyo kuwa kale si loo xasuusto taariikhda sheekha waxa lagu magacaabay dugsiga sare ee Sheikh Yusuf Al-Kownayn ee magaalada Muqdisho iyo tuulada uu sheekha uu ku duwan yahay ee loo yaqaan oo barkhadle oo lagu magac daray sheekha